dhaqaalaha wax kasta maanta Puntland meeshay taalo waa la og yahay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa geed salbeelay dushu ka balolaa haddii madaxdeena ay xumaatay inaguna waa baaba'aynaa oo ay garan waayeen war maxaa Puntland u dana war danta Puntland ha laga hadlo maanta Puntland waxaa ka jira sixir barar waxaa ka jira cadaalad darro waxaa ka jira xuriyatul qowlki in uu meesha u dhameysay maraayo aan cidna hadli karin cidna ra'yigeeda cabiri karin shaqo la'aantu waxay gaartay meeshii ugu sareysay Puntland waa wada boog meel la taabto ma leh anu waxba ku si dheeraan maayo waxyaabahaas waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo federaalka iyo Puntland maalmihii dhaway dadkii hadlayay madaxda ilaa wasiirada ilaa niman dawladda u shaqeeya oo madaxweynaha Puntland meeshu uu maro khalad iyo sax la maraya war federaalka wuxuu qabtay waa loo jeeda idinkuna Puntland meesha dhigteen waa loo jeeda Soomaalidu waxay tiraahdaa ceebtu waa nimay ku taalaya nin lagu tiray haddii aad maato dhanqeeliyeenaysaan cid ceeb kuma tiri kartaan aan ceeb lahayn idinkuna ceeb aad leedihiin iskama tiri kartaan wax kasta waa la og yahay waa loo jeedaa dadku ma dhagala'a ma indhala'a haddii aad cabsi geliseenna haddee dadku insha Allah ta'ala waxba isbedeli doona waxaan rabaa inaan madaxda Puntland wax yar u soo jeediyo Puntland waa dalkaygii aabayaashay ayaa wax ka asaasay waa jeclahay horumarkeeda dadka ugu horeeyay baan ka shaqeynayay haddana ka shaqeeya marka madaxdeedii baa tihiin idinka quusan mayno Soomaalidu waxay tiraahdaa madax muuqda iyo midi saawira midna lagama quusto war Ilaahay ka cabsada oo aqooda wixii la idiin doortay intaad aqoonsan lahaydeen qof baa jagan naga qaadaya ama mashruuc naga joojinaya waxa kaloo idin leeyahay Soomaaliya horumarkeeda iyo cadaaladeeda afka ka tiraahdaan liana Puntland haddaan cadaaladeeda laga shaqeyn Puntland haddii aan mashaariic horumarineed iyo lillahi loogu shaqeyn federaalka waxba kama qaban kartaan Soomaalidu waxay tiraahdaa weelku guntu ka unkamaa gabar haday rabto in haantasho kor ka bilowdo salka ka bilowda Puntland idinkoo sidaa ka dhigay cid idinka rumaysanaysa ma jirto in federaalka maalin kasta dhalishaan shacabka Puntlandna waxaan leeyahay